وفي أخراك أفلحت في الأولى وفي أخراك النفس إن خالفتها أفلحت في الأولى وفي أخراك أفلحت في الأولى وفي أخراك النفس والشيطان إن أفلحت في الأولى وفي أخراك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. درسنا نوحك بلاوانا بلوغ سورة الحشر. سورة الحشر وسورة مدنية وكم إذا قرآن سورة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آيات كيدنا والباتن إيا أفر آيات. سورة دان سبب نزول كبيرو هذا أما أرنت بدنا بأيكاد ليسو درسي إن هراء آخر كيس أيان كسو قادني وأنا تي كساب سنة نمك يهودها وهرير بني نضير لأورنجري ومقالة المدينة قبائل كدرس كالله ويهودها كمتكاها markii ay ka baxeen ballantii nabiga ay la galeen calayhi salaatu wassalaam oo ahayd in la isnabadgeliyo wixii yimaadana oo dhibaato ana in laga wada qayb qaato oo mid loo yahay. markii ballanta ay ka baxeen oo isku dayeen nabiga inay dilaan sallallahu calayhi wasallam, markaas kadib duulaankii lagu duulay iyo qaxintii nimanka la qaxiyey ayaa suuradda awalkeedu uu ka hadlay. suuratul xashri. bismillaahi arraxmaani arraxiim. الله وحيري سبح وحا نزهه أو تصبيح صداه لله الله ما في السماوات وما في الأرض. سماواتك يطولك مخلوقاتك دحسوغان ودن أيا إلهي نزهه ووحك الصوان لائق وأهين إلهي كفغي سبحانه وتعالى. وهو الله العزيز الله غالب كأوي أو وعيد كات كان كدا آني جرين يعيد هويسان كدا مدنا الحكيم الله حكمة بدنوي. هو الله الذي أليه وهي أخرج صوصاري الذين كوي كفروا قالوا بي ومن أهل الكتاب أهل الكتاب كم بدأ من ديارهم قريوه ذي كصوصاري وانمنكي غير بني نضير لأول الحشر saaritaankii ugu horreeyey oo la saaray ama qaxintii ugu horreeyey oo la qaxiyey ama bixintii ugu horreeyey oo la bixiyey allah subxaanahu wa tacaala ayaa guryahoodii iyo dhufeysyadoodii ka soo saaray. waana markii nabiga calayhi salaatu wassalaam iyo asxaabtiisa ay hareereeyeen oo culimmada waxaad moodaa inay u badan yihiin 6 maalmood keliya ayayba hareereysnaayeen. dabadeedna rucbi iyo walbahaar iyo cabsida qalbigooda ilaahay ku tuuray, markaasay isdhiibeen. culimmada qaar ka badiyo yidhaahda ilaa dhowr 10 cafo ayaa isweer laga hayayna way jiraan. liawali lxashri ayaa layidhi. xashri meeshan sideeda waxaa loo jeedaa waa bixin ama qaxin. gadaal baynanu ka imaan doontahay bimacnaa aljalaa-u, iyaga iyo xaasaskoodii caruurtoodii kulli in la qaxiyey oo dhulkii laga raray. أول الحشر قالين مرك بحنتي أجوه رئيسي تنلبات قرماء وعلماء واحد من الدابضنا وحي هذا وحال وقحي مركي ورا خيبر أي قيب كم إذا وقح. طيب من وحي آدي حكاس إيو أدرعات من اللي هذا الشام كم إذا أي آد مركي هو مركان مركي لبعض من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أي خيبر أنتي سواء آدي كقحيي. الله وحير ما ظننتم ملايين من المؤمنين أن يخرجوا إلى بحيان منكاس سفرود إلى بحيان وقريوه هذا اللغة قحنكا واللغة صارك الملايين هاي لما وحي آيين عيدا يحب إلى هاي سيئي
dhul istiraatiijiya degan dhufaysyo adag iyo qalcado adag maxaan kula ka samaystay marka malayn mayn baa la yidhi mu'miniinay nimankaas inay baxayaan oo ay u malaymeen awoodda iyo ciidanka iyo xoogga iyo hubka ay haysteen darteed wadannuu iyaguna waxay malaynayeen annahum iyagu maanicatuhum mid u diidaysa inay tahay xusuunuhum qalcadahoodu inay u diidayaan oo ay ka difaacayaan min allah ilaahay xaggiisa iyo ilaahay ciqaabkiisa iyaguna waxay moodayeen qalcadahooda adag iyo dhufaysyadooda adag inay ilaahay ka dhicin karaan wadannuu iyaguna waxay u malayeen reer bani nadiir annahum iyagu maanicatuhum mid u diidaysa inay tahay mid macnaha ka difaacaysa xusuunuhum qalcadahoodu min allah ilaahay xaggiisa ka difaacaysa maanicatuhum xusuunuhum laba tafsiir laba icraab ayay culimmadu geliyaan kan xooga badani waxa weeye maanicatuhum inay tahay khabar muqadam ah xusuunuhumna ay tahay mubtada mu'akhar ah oo markaa macnuhu wuxuu noqonaya wadannuu waxay moodayeen annahum iyagu xusuunuhum dhufaysyadooda iyo qalcadahooda maanicatuhum inay tahay mid difaacaysa oo ka difaacaysa min allah ilaahay xaggiisa subxaanahu wa tacaala culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen xusuunta waxaa faacil looga dhigi karaa maanicatuhum maxaa yeelay maanicah waa ismu faacilo faacil bay u baahantay waxay yidhaahdeen wadannuu waxay u maleeyeen annahum iyagu nimanka reer bani qurayd maanicatuhum mid u diidaysa inay tahay xusuunuhum qalcadahoodu inay tahay mid u diidayso macnaha ka difaacaysa min allah ilaahay xaggiisa maxaa dhacay marka fa ataahum allahu ilaahay wuxuu uga yimid min xaysu meel lam yaxtasibuu aanay malayn meel aanay filayn ayaa ilaahay uga yimid oo maxay tahay nabiyullaahi maxamed baa ilaahay ku salladay sala allahu calay wasallam iyo asxaabtiisa markaasaa si fudud hal mar dhulkooda looga qabsaday oo loo qaxiyay waqadafa ilaahay wuxuu ku tuuray fii quluubihim quluubtoodana si loo qaxiyo oo ay isu dhiibaan arrucba argagax baa ilaahay ku tuuray subxaanahu wa tacaala meel aysan ka filaynna waa laga soo weeray oo marna filimayn nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa ayaa idin qabsanaya idin soo weeraraya dhinaca kalena si ay isu dhiibaan quluubtoodii baa argagax ilaahay ku tuuray subxaanahu wa tacaala eedana iyagaa lahaayo waa markii ay isku dayeen nebiga inay dilaan calayhi salaatu wasalaam rucbigan waa kii nebiga ilaahay ugu deeqay oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam nusirtu birucbi masiirata shahrin waxaa ilaahay iigu gargaaray cadowgaygu inuu iga argagaxo bil in loo socdo argagaxaas ayaa qalbigooda ilaahay ku tuuray markaasay isdhiibeen yukhribuuna xaal ay yihiin kuwii kharibaya oo burburinaya buyuutahum guryahoodii biaydiihim gacmahooday ku burburinayaan guryahooda wa aydi lmu'miniina mu'miniinta gacmahoodana guryahoodii waa lagu kharibayo waa lagu burburinayay factabiruu cibro qaata dadow yaa ulil absaar factabiruu cibro qaata oo arrintaa kuwaana qaata yaa ulil absaar aragtiyaalka dheer kuwa u saaxiibka ahow bal arrintaa ku cibro qaata yukhribuuna buyuutahum yukharibuunana waa la akhriyaa laba tafsiir baad moodaa culimadu badaa inay geliyaan kan hore waxa weeye markay hubsadeen in dhulkooda la qabsanayo oo lagala wareegayo ayay xasan dartiis guryahoodii u burburinayeen si nebiga calayhi salaatu wasallam iyo asxaabtiisu aanay u degin mar kale culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen markii loo oggolaaday gaadiidkooda wixii u qaadi karo inay qaataan ayaa waxaa la ficnaanaya loox ama tiir guryahooda ku jira markaasuu ninkii gurigiisa duminayaa si looxaas ratigiisa ama gaadiidkiisa uu u saarsado mu'miniintuna guryahooda waxay u duminayeen si ay haddii waddada loo soo marayo ilaan dhul waxay ahaayeen deganaayeen jiq ah oo guryo iyo beero timira ku xiran marka waa inoo imaan doontaa si meel loogu maro loo helo ayaa guryahoodiina qayb ka mid ah muslimiintu ay duminayeen dhirtoodii qayb ka midana ay jareen si ay mideeda kale si ay argagax ugu noqoto
maxaa yeelay qofka cadowga hadduu arko hantidiisii aad burburinayso argagax baa ku dhacaya iyo dacfi. allah wuxuu yidhi factabiruu cibro qaata yaa ulil absaar kuwa aragtiyaalka dheer u saaxiibka ah. ciddii ilaahay subxaanahu watacaala uu rabo inuu halaago gacmahooduu ku halaajiyey. waa ka hantidoodii iyo guryahoodii gacmahooday ku burburinayay. wax lagu cibro qaato wey. allah wuxuu yidhi walowlaa an kataba allah haddaanu ku waajibin lahayn oo kuwaas aanu u qadari lahayn calayhim korkooda aljalaa'a qaxitaan la qaxiyo, haddaan ilaahay u qadari lahayn oo ilaahay aanu u qori lahayn oo aanu ku xukumi lahayn lacadabahum allah waa cadaabi lahaa fi dunyaa adduunka ayaa lagu cadaabi lahaayo. raggoodana waa la layn lah, dumarkooda iyo caruurtoodana waa la qafaalan lahay, waa la qaniimaysan lah, sidii nimankii reer bani qurayda oo kale oo yahuudda ah loo galay. laakiin kuwan ilaahay wuxuu u qadaray inay isdhiibaan. nebigana markaas uu kula heshiiyey sala allahu calayhi wasalam inay guuraan oo waddanka ay ka qaxaan, beerahoodii iyo guryahoodii degaankoodii inay ka qaxaan. wax allaale wixii haddii ay haysteen, dadkoodii iyo carruurtoodii xaaskoodana ay ka haystaan, awrtooda waxay u qaadana keliyana ay la tagaan oo wax kale aanay la goori karin. sidaa haddaan ilaahay ku xukumi lahayn adduunkaa lagu cadaabi lahay, waa la layn lah, dadkooda maxasta ana waa la qafaalan lah. allah wuxuu yidhi walowlaa an kataba allah haddaanu ku qori lahayn calayhim korkooda aanu ku waajibin lahayn oo aanu u qadari lahayn oo aanu ku xukumi lahayn jalaa waa qaxitaan dhammaystira, oo waxa weeye in qofku xaaskiisa iyo carruurtiisii kulli uu la guuro, waxba aanay ka harin. oo ikhraajku isagu wuxuu noqon karaa qofku keligii inuu tago, waa kan. laakiin jalaa haddii la yidhaahdo waa qof aan waxba ka tegin oo wada guuray oo kulligii wada qaxa. allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walahum waxay leeyihiin fi laakhirati aakhirana waxay leeyihiin cadaabu naar, naartii cadaabkeeda bay leeyihin. maxaa yeelay waa yahuud, khayr ma leh, gaalnimay ku dhimanay. laba nin keliya ayaa kasoo islaamay baa la yidhaahdaa, intoodii kale gaalnimadii bay ku tageen. aakhirana marka adduunkana saasaa loo cadaabay oo looga adkaaday, cadaabka aakhirana waa u harsanyay. allah wuxuu yidhi daalik ciqaabkaas in la qaxiyo, xoolahooda la qaniimaysto, aakhirana cadaab adag ay leeyihiin, maxay ku mutaysteen? daalika ciqaabkaa waxay ku mutaysteen biannahum bisababi annahum iyagu shaaqu llaha allah inay khilaafeen, wa rasuulahu iyo rasuulkiisii bay khilaafeen sala allahu calayhi wasalam. allah iyo rasuulkiisii bay caasiyeen, nebiga inay rumeeyaan bay diideen, ee qur-aanka inay rumeeyaan bay diideen, ilaah inay ateecaan bay diideen. saasay ku mutaysteen. waman yushaaqi illaaha ilaahay qofkii khilaafa, haddii qofkii ilaahay khilaafayna nebiga waa khilaafay calayhi salaatu wassalaam. fa ina allaha allah shadiidu lciqaab, allah ciqaabkiisu adag yahay. ciddii ilaahay khilaaftay nebigana khilaafta sala allahu calayhi wasalam, ilaahay waa ciqaabay. ciqaabka ilaahayna waa adag yahay, waana laga digtoonaado. allah wuxuu yidhi maa qadactum wixii aada jartaan, maakii qadactum aada jartaan oo aada jarteen, maakii qadactum aada jarteen oo min liinatin geetimreed ah, ow amase taraktumuuhaa aada ka tagtaan oo aada iska daysaan qaa'imatan xaalay tahay geetimreedkii mid ku taagan calaa usuulihaa jiddaheeda ku taagan, oo macnaha aydaan taaban. fa biidni illaah laba gooraalaba labada arrimoodba waxaad u samayseen ilaahay idankii subxaanahu watacaala. ilaahay baa idiin idmay. dhirta aada jadheen iyo kuwa aada dayseenba oo aada iska dayseenba waxaad sidaa u samayseen idan ilaahay weye subxaanahu watacaala. ilaahay baa idiin idnay oo idiin ogolaaday. oo waxaa la yidhi markii ay asxaabtu bilaabeen si meel loo soo maro loogu helo dhirtoodii qayb ka mida inay jareen, ayay kor u qayliyeen oo waxay yidhaahdeen maxamedow fasaadkaad reebi jidhay, waxa kana waa hanti, xataa hadday idinka idiin harayso maxaad u jaraysaa? markaasa aayaddan ilaahay soo dejiyey subxaanahu watacaala leeyahay wixii aad jadheenna ilaahay baa idiin idnay, wixii aad dayseenna saasa ilaahay idinku ogolaaday subxaanahu watacaala. maa qatactum wixii aada jarteen oo min liinatin geetimreed ah. culimada qaarkood waxay leeyiin geedaha qaar baa ka baxayaan, ile timirtu intaasoo nooce
laakiin geed timreed ku jaa aw amase taraktumuuhaa ama aad iska daysaan geed timreedkaas qaa'ima aad ka tagtaan geed timreedkaas qaa'imatan xaalay tahay mid ku taagan calaa usuulihaa jirdaheeda oo idaan jarin ilan geedka marka la jarayo jiriddaa laga jaraya labada jeerba fa biidni illaah ilaahay idankiisa ayaad ku samayseen iyo waliyukhziya allah inuu hoojiyo oo uu dulleeyo alfaasiqiin kuwa faasiqiinta yuhuudda oo gaalada ah in la dulleeyo maxaa yeelay markay arkaan hantidoodii oo la jarayo oo laga adkaaday dee waa dullayn oo cidda wax yeelaysa aanay iska dhicin karin allah wuxuu yidhi wamaaki afaa allahu u soo celiyey calaa rasuulih rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam wixii ilaahay uuga soo reebay minhum reer bani qurayda oo xoola ah fay waxaa la yidhaahdaa sida aayadduna inoo sheegayso xoolaha gaalada laga qabsado laakiin dagaal aan lagaga qabsane sidaasoo kale intee suweer laga qabtay intay cabsadaan marka ay ka qaxaan oo ay ka cararaan wamaa afaa allah wixii uga soo reebay calaa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam minhum kuwa gaalada reer bani nadiir wixii ilaahay uga soo celiyey oo looga soo reebay famaa awjaftum kuma aydaan cayrin calayhi korkiisa min khaylin wax farda ah kuma aydaan cayrin walaa rikaabin geel rakuub ahna kuma aydaan cayrin walaakina allaha hase yeeshe allah ayaa yusallitu ku sallada rusulahu rusushiisa ayaa ilaahay ku sallada calaa man yashaa cidii uu doono kuwaasna rasuulka ilaahay oo maxameda sala allahu calayhi wasalam ayaa ilaahay ku salladay markaas ayay isdhiibeen oo hantidoodii ay ka carareen wallaahu allahna calaa kulli shayin shay walba qadiirun allah u awood badan weeye subxaanahu wa tacaala aayaddan culimmada qayb baa waxay ka qaateen marka ilaahay uu yidhi wamaa afaa allahu calaa rasuulihi minhu wixii ilaahay uga soo reebay nimankii reer bani qurayda nimankii waxaa leh reer bani nadiir xaggood oo wax dagaal ah iyo xoog iyo ciid iyo gaadi aad ku cayriseen aydan ku qabsan calaa rasuulihida waxay ka qaateen dhammaan hantidaas taladooda nebigu inuu lahaa calayhi salaatu wasalaam ciddii wixii isagu ka qaadanayo iyo ciddii wax ka siinayo isaga inay u taal sidaa daraaddeed faygu qaniimada inuu ka duwan yahay aayadda dambana guud ahaan fayga xukunkiisa ayaa inuu ku imaanaya wamaa afaa allahu ilaahay wuxuu uga soo reebay calaa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam minhum reer bani nadiir famaa awjaftum kuma aydaan caynin calayhi korkiisa min khayrin wax farda ah walaa rikaabin iyo wax rakuub geel ah walaakina allaha hase yeeshe allah ayaa yusallidu ku sallada rusulahu rusushiisa calaa man yashaa cidii uu doono sida reer bani nadiirba nebiga loogu salladay calayhi salaatu wasalaam wallaahu allah calaa kulli shayin shay walba qadiir ilaahay waa awoodaa way ka mid tahay jebinta nimankaa la jebiyey allah wuxuu yidhi maa afaa allahu wixii ilaahay uga soo celiyo calaa rasuulihi rasuulkiisa min ahli lquraa magaalooyinka dadka degan oo gaalada ah wixii sidaasoo kale oo dagaal la-aan lagu helay waxaad moodaa culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen aayadda hore iyo tani waa kala duwantahay oo taa hore waxay ku gaar tahay xoolihii reer bani nadiir nebigaa iska leh calayhi salaatu wasalaam talooda isagaa iska leh sidaa daraaddeed sanad wax ku filan nebigu waatuu kala haray calayhi salaatu wasalaam wixii kale nebigu waa bixiyeyo dadka muslimiinta ah iyo maxaanku dhahay jihaadka iyo arrimahooda ayuu geliyey aayaddan dambana culimmadaasi waxay yidhaahdeen wixii kale oo fay ah oo ummadaha kale laga helo dagaal la-aan lagaga helo ayay aayaddani ka hadlaysa maa afaa allahu wixii ilaahay uu usoo reebo calaa rasuulihi rasuulkiisa min ahli lquraa magaalooyinka dadka degan oo gaalada ah wixii laga qabsado oo dagaal la-aan lagaga qabsado falilaah ilaahay baa iskale ay falilaahi xukmuha horta maamulkeeda ilaahay baa iskale ilaahay wax kale kama rabe taladeeduu leeyahay walirasuuli rasuulka ayaa iska leh sala allahu calayhi wasalam walidil qurbaa qaraabada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa bani haashim iyo bani mutalib
walyataama agoonta ayaa iska leh walmasaakiini masaakiinta ayaa iska leh wabni sabiili jidka inankiisa oo qofka musaafirka ah ayaa wax ku leh sidaasaa ilaahay xukumay subxaanahu watacaala oo aayaddan culimmadu waa ku kala duwan yihiin madhabu shaafici raximahu llahu tacaala intii nebigu uu noolaa shayga maamulkiisa isagaa lahaabay laakiin kadib sidee laga yeelay taa hore waxaa taqriiban waa la isku waafaqsan yahay laakiin nebiga kadib shayga sidee laga yeelay imaam shaafici qowlkiisa raajic isaga wuxuu ku tegey sida qaniimada loo qaybinayaayo 5 meelood baa loo qaybinayaa meel waxaa iska leh dadka dagaalamaya oo ayaa loo qaybinayaa ciidanka oo jihaadka ku jira maxaan ku yiraahdaa 4 meelood inta 5 loo qaybiyo dadka dagaalamaya iska leh meesha soo hadhayna 5 baa loo qaybinaya oo waxa weeye meel ninka madaxda ah ileen booska rasuulka isagaa joogay sallallahu calayhi wasallam ayaa talaada iska leh waa meeshii 5aad ayaa 5 loo sii qaybinaya sida qaniimada meesha labaadna qaraabada nabiga la siinaya ala bayt meesha saddexaadna agoonta la siinaya meesha afraadna masaakiinta la siinaya meesha shanaadna musaafiriinta ayaa la siinaya culimada imaam maalik iyo rag badan oo kale waxay yiraahdeen maya faygu waa isku mido kulligiis waxa uu madax banaan xoolaha gaalada dagaalaan looga qabsaday qofka madaxda ah muslimiinta markaa madaxda u ah taladeeda isaga iska leh meeshuu gelin leh waa ka ilaa yakuuna maxaana sidaa loo yeelay oo xoolaha fayga loo qaybiyey kay laa yakuuna si aanu u ahaan xoolihii fayga oo gaalada lagala soo haray duulatan kuwa ku dhex warwareega bayna alaqniyaa'i kuwa aqniyada dhexdooda oo minkum idinka mid ah haddaan xoolaha la qaybin waxa muslimiinta gacantooda soo gala oo ka dhaxeeya dadka masaakiinta aan loo qaybin dadka madaxda ah iyo dadka aqniyada ah ayuunbaa qaata ama mashaariica ku qaateen sida maanta badan ama dana kale ha ku qaateen halkaa waxaad ka arkaysaa xoolaha caamka ah ugu horeyn waxaa xaq u leh dadka baaha ama dadka dowladda u shaqeeya ha noqdeen oo xaqa ugu horeeya leh ama dadka kaloo baahan waa in la gaarsiiyo laakiin haddii xoolihii la qaybin waayo dadka madaxda ah iyo dad aqniyaa la shaqaystaan kaliya xoolihii qaadanaya si saas aysan u dhicin ayaa marka ilaahay wuxuu xukumay xoolihii in la qaybiyo wamaa ataakum rasuulu rasuulka wuxuu idinla yimaado fakhuduuhu qaat ama xoolaha ha noqdeen ama ha noqdeen wuxuu idin faray wixii rasuulka idinla yimaado qaata sala allahu calayhi wasalam wamaa nahaakum wuxuu idinka reebo canhu xaggiis oo ama xoolo ah uusan idin siin ama wax kaloo uu idinka reebay oo macnaha la xarimay fantahuu ka har wattaqu llah allah ka cabsada ina allaha allah shadiidu lciqaab allah ciqaabkiisu adag yahay weeye subxaanahu watacaala wabillahi towfiiq sala allahu calaa muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin النفس والشيطان